بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tababarkeena aad runtii muddo la soo waday si loo diyaariyo marka tababarna waxaan ku naqaanaa inuusan ahayn laakiin ay tahay tab la baranayo miya ma ogi Soomaaligu tababar muxuu yahay ma tab la isbarayaa tababar macna qof tababar qaatay waa qof wax yaqaan ma aha qof oo markuu meel taga hadhow tababar waagaan yaraa waxaan arki jiray magaalo aan deganayn ba askarta lagu dhibow la gelin jiray dhibow markay ku jiraan maalintii koowaad askarta waxa u gaardinayaan ayaabay waa lagu qoslayaa ilmaana waa fiirfiirinayna qaar gacmaha isku garaaca lugaha isku garaaca 6 bilood kadib waa la yaabaysaa dadka u mashxaraday sidee yihiin tababar ay soo qaateen maalin kasta waxba u kordhay marka macallimiintana kulay tababarka wax isbedel bay sameyn doonaan tababarkeena wuxuu ka kooban yahay iyo waqtigiisa aan isla xadidno waxyaalaha aan ka hadli doono waxa ugu muhiimsan oo maalin kasta alla soo taaganahay waa 10 say loo diyaariyaa marka mar rabna in 10 loo diyaariyo inay noqoto wax theory laakiin 10 in meeshan marka qof kasta uu ka baxayo soo diyaarin yaqaan rabnaa wali soo jeedin yaqaan da inta ka baxno oo si practical ah loo wada sameeyo 10 sidee loo diyaariyaa oo macallin uu 10 diyaarin u sameeyo iyo waxa looga baahan yahay oo dhan labo sidee fasal loo maamulaa maareynta fasalka ayadana waa mushkilad taagan markastana na haysato waa xalna u baahan macallimiintuna ay ku kala duwan yihiin aan ku bilowno maareynta fasalka sidee fasal loo maareeyaa marka laga hadlayo maareynta fasalka dhowr arrimood aan ka fiirino dowrarka ay ku leeyihiin qoolo walba kaalinteeda macallinku wuxuu kaalin ku leeyahay maamulka fasalka ardayga wuxuu kaalin ku leeyahay maamulku wuxuu kaalin ku leeyahay deegaanka iyo fasalka iyo maxay kaalin ku leeyihiin iskuulka suuye intaba marka qolo walbana ha qaadato xilkeeda iyo mas'uuliyadda ay leedahay waa loo kala tagi waayay macallin iyo fasal iyo macallin maamul shaqo kuma leh adaa iskala fasalka adaa maamula wixii dheeri oo lagu saacideeyo waa shay laakiin fasalkaas 45 daqiiqo xisada ah ama 40 daqiiqo dheh waxay noqoto iyo xisad kale hadaa ku jirto fasalkaas adaa maamula laba macallin isbabar dhig adiga midka aad tahayna fiiri fasalaad ku jirtaa fasalkaagu waa habeeysan yahay ardadu waa la socdaan 10ka waxa ka socda nashaadaad fasal ku xigana waa laga dhigan laayay marmar aada macallin ma naga amsi ardada war kuwa arday fiican maaha adigu kuwa fiican baa haysataa hadhow xisadii waxa dhacay jaraski waa la isbedelay fasal kala tagtay fasal kale waa degay kii hadaa ay ka soo tagtay waa ka caydana macallinkii hadaa waa ku sidee hadaa kuwaas waa xumaayeen hadaa kuwa waa sidee ma isaan ku arkaanba marka waa la garan karaa meesha wax iska bedelayaan fasal macallimiintu oo dhan waa ka qaylinayaan waxay leeyihiin fasalka fasal fiican maaha laakiin hal macallin oo macallimiinta kamid ah fasalkaas markuu galo shub waa la aaminsan yahay 10ka waa la dhiganayaa waa la socdaa waa la faraxsan yahay macallimiinta kalena maya oo muxuu ku akhriyo isagu say wax loo maareeyo 10 marka inta aadanba fasal 10 dhiginba waa in fasalku degan yahay waxaa dhahaanba 10 ha bilaabin ilaa fasalka uu ka dago la tabda darsa qabla an yasuda nidaam fasalka oo nidaam lahayn oo ardadu aysan diyaar u ahayn in wax loo sheego hadaa iska bilowdo dhibaato noqonaysa maareynta waa habka la rabo in ujeedooyinkeena waxbarasho ee aan diyaarsanay aan ku gaarno ujeedo waxbarasho aan diyaarsanay saakay waxaan u soo baxay ardada inaan shaygaas ku tababaro ama baro marka dowrkeena macallinka marka dowrkiisa macallinka wuxuu noqonaa maxaa dowrka keeni kara meel meeshaan waxa ku taala macallinku aan maadada aad u aqoon
ruuxaas kor in loo sheego ma ahayne warkaas macallinku aan maadada aad u aqoon kor baa loo sheegaa ma jira macallin aan maadadiisa ka adkayn oo ardaduna ay ogaadeen inuusan maadada ka adkayn wuxuu meesha la yimidba yaambadiisu af ma leh yaambadii wax ma faaskiisi wax ma taran qalinkiisi ma qorna macallin aan maadada aqoon ma jiraa aan weydiiyey ma aqoon ma dhahayno aan maadadiisa ka adkayn aan sii fududayno macallin aan ku rarnaanine miskiin baa miskala fuulale macallin aan kale ku rarnaan aan ka dejinay ma jiraan macallin casharka maalinta uu dhigayo oo aan aad u aqoon ama uu ka kala daadsan ma jiraan soo ma dhici karto hadhow niqaash badan furi doonaa laakiin waxa kale iska daa ani waxaan soo arkay macallimiin ayaan imtixaan ka qaadnay imtixaanka laga qaaday culuum buu ahaa science ayaga science wax kama gelin imtixaankay soo galeen waxay dhaheen anaga waa science aan dhigaynaa luqada carabiya ayuu ahaa macallinku hadda waxaa ku taalay callil maa ya'ti kuwa soo socda sababee waxaa ku taala haddii qofka laga bixiyo caloosha wuu noolaan karaa laakiin haddii laga bixiyo mindhicirada ma noolaan karo callil sababta sheeg macallimiintii imtixaan gashay macallin ka mid wuxuu yidhi laa cillata fiihi laa cillata fiihi taquumu maqaama alcillatayn naxwihii macallinka hadduu fasalka ku soo baaso ama uu yimaado fasalkii oo science loo dhiibo hadda laa cillata fiihi wey ma dhihi karnaa macallinka keliya buugga ardayga bas akhriya oo wax kalo aanan dheeriya fiirin ardayduna ay buuggooda soo akhriyeen macallinkaasi waxbaa ka maqan wax dheeraad inuu soo akhriyaa ka maqan caalamka maanta waa furan yahay waa iska tuulo yar waxa aad dhigayso meelo badana ka fiirin kartaa haddaadan marka meelihii ka raaraadin su-aalaha hadhow dhabku odhanaysa macallin aan aqaano saaxiibano fariida baa wadamadaas carabta ayuu wax ka dhiganayay markuu qalinjabin raba waxaa la geeyey tababar oo macallinnimo fasaluu soo galay wuxuu ka hadlay al-ismu ismu waxaa la dhahaa ismu insaanin ismu xayawaanin ismu jamaadin wa nabaatin magac dhirta kulli iyo xayawaano magacyadooda wey wagayra dalik wiil gadaal fadhiya gacan taagay macallin wagayra dalika maxaa ka mida haddaysan wagayra dalika loo diyaarsanayn haddii galaaska waa kala daadanaya wagayra dalika diyaarin bay rabtaa macallinka wuxuu yidhi wagayra dalika waxaa ka mid a kaljinni walmalaa'ikati jinka iyo malaa'igta ku jira marka qaarkood waxyaalaha iyo wixii la mida etc waa inay meel kuu saaran tahay maya casharaa dhigtay macallinkii ardayga su-aal ku weydiiyey casharkaani magaalada muxuu ka taraa muxuu ani anfacayaa ibartaye waa inaan u sheegnaa maada kastoo aan u dhigayno faa'iide iyo wax ahli ka leedahay lagu dabaqo magaalada nolosha lagu dabaqo su-aal lagaa weydiiyey maxay nolosha iga tartaa haddaan dhahna biilkan ku saxanaa ka warrama bitambiilkaa lagu saxaa marka macallinka maadadiisa inuu yaqaan waa aragteena laba macallin oo kala duwan macallin maadada aad u yaqaana laakiin aan wax dhigidda ku fiicnayn macallin maadada hadda is leedahay wax badan ma yaqaano laakiin wax dhigidda aad ugu fiican labadaas macallin yaa soo baxaya meeshaan wax dhigidaa la rabay qofkan waa gaarsiinayaa ardadan waa qancinayaa laakiin maado badan arday waxay dhaheen macallin wax u dhigayay way ka soo dacwoodeen macallinkan waxba nooma maadada waa yaqaana laakiin waxba noo kama fahamno fasalkii la tagay waa fiirinay macallinku waxba sharxaya wali si aqoon sar u sharxaya markii ardada macallinku baxay ardada waxaan weydiinay maxaa ku haysataan mid baa wuxuu leeyahay maadada waa yaqaanaaye laakiin waa maktabad aan habaysnayn kulaha waa maktabad laakiin ma habaysna casharadu isku dhex darsan yihiin maalintaas waxa uu dhigay wixii shar uu dhigay kulliyo wax ka weyn mid baa wuxuu leeyahay anoo biyo u baahan tuba biyo u baahan buu booyad afka igu shubaya weyn halkaas biyo marka haddii laga dareemo in maadada aadan ku fiicnayn
wax yar la dareemo inaa meel ah qofa wax yaqaana ardada kamida waa la isweydiinaa sidii hore maaha inta radka lagta la galaa la soo fiirinaya waa lagu weydiinaya markaas macnaheedu ma aha inaan wax walba naqaano oo wixii la dhihi jiray afarta madhab buu ka jawaabaa annaga ma ahin wax walba naqaano laakiin waxaan nahay dad wax baranaya waxay yaqaanaan yaqaana waxaysan aqoon yaqaana waan nahay waa noo kala caday waxaan naqaano waa naqaan waxaan aqoonna waa naqaan in aanan aqoon waa noo kala saartay marka waxaan naqaano waa naqaan waxaan aqoonna waa naqaan iyagana labada noo kala duwan yihiin marka hadhow hadii la weydiiyo kala su'aasha lagu weydiiyay oo aad garan weysay maxaa la sameeynaya su'aasha lagu weydiiyay waa ku bixi weysay waa garan weysay ama waa ka hoos baxday ma aqaano maceeba waa soo baaraya maceeba yaa kaloo yaqaano sheegaya maceeba waxa ceebaan u maleynaya inaan geerka iska kicino oon libaaxiyeyno oon iska dhigno maaragtay ardada ku kacdo waana kaa caddahay adiga waa iska mar waan dhici kartaa waana soo martaana ma aadan aqoon yaa roon in ardada inaan been u sheegna been dhamaatay internetka lagala soo baxay waxa dhan wax la sheegay maya marka ugu runta macallin baa wuxuu leeyahay anigu saan ceeb u dareemin oo aanan u dareemin ceeb u dareemin in ceebeysnahay waa isku leeynaya ma waxa soo kala garan weyseen ma maanta maqlay waxa sama naqaan meeqa sana wax idin dhigay berri qofka aan keenin say u taala ogow kuwa berri loo diray ku jirtaa saas maaha kuwa berri loo diray baa ku jirtaa marka waxa laga rabaa berri inaad raadiso qaarab mar soo wac gobol jooga macallin ilmahan wax u diray shalay bal maanta su'aashaas aan ugu dhaganay bal ii soo sheeg macallinka waa weysay aad raadisay su'aashiina waa soo weysay berrina waa lagu sugayaa xagee wax ka bilaabmay meel waxa haysa malaha waa su'aal iska xooga ka duwanaatay waxa sameeynaa macallinkii dabcan wuxuu leeyahay umayna markaas oo kale hadaan ahaan la madaxa soo xanuunay meelahan dhag maamulahan wacaya maamule maanta si baan ahay madaxa laga haya ma iman karo meel laga haya ma jirto su'aasha laga haya waxa soo dhan wax dhibaato ma leh hadii la yiraahdo la soo baaro wax ay leedahay ma jiro awalna su'aalo hoos ilmo yar yar waa taqaani wali ilmaha yarka qaarka su'aalo kulul baa jira haday weynaadaan ay ku weydiiyaan habartaan dadku inaysan wax kasta aqoon macallinka wax kasta ma yaqaan marka nabiga kaleey salaam wuxuu leeyahay mal mas'uulu anha bi'alama min sa'il nabiga oranaya hala weydii kama badiyo ani adiga kama badiyo marka waxa dhib ma leh macallinku ma aha inuu meeshiisa laga sara mariyo laakiin waa inaan maadadeeda aqaana diyaariya ashara badan ka diyaariya qodobka labaad waxa waa macallinku waa yaqaanay laakiin maadada ma gaarsiin karo sidii la rabay maadada waa taqaana laakiin sidii laga rabay ma gaarsiin karto